سلامي يا إخواني وأخواتي. waxaa la yaab leh ama isweydiin mudan maxay tahay sababta ay dadkan Soomaaliyeed oo siyaasiyiinta lagu sheegay ay isku maqli waayeen oo inta shiraan oo tashadaan dalkooda ay xal iyagu uga heli waayeen miyaysan dad maankoodu iyo garaadkoodu ku filan yeesanayn maxayse isku dhageysanayn maxayse madaxda markaas talada haysa aysan u dhageysanayn oo ixtiraamayn oo u maqlay oo ay markay arkaan ajnabi iyo niman lamida oo dal shisheeye u yeeraan ay u dhageystaan oo kulligood madaxa inta u dhiibtaan loo dhex fadhiisto oo loo kala qorsheeyo oo waxay samaynayaan loo sheega oo loo dhexdhex miyaysa isku af ahayn miyaysa isfahmayn maxay taa sababta ma la isweydiiyey dadka Soomaaliyeed ma isweydiiyeen ilaa meeqa sanaan ku jiraynaa ilaa intay sii soconaysaa waxaan miyaanan dad bila'aani iyo garaad la'aanan ahayn imisaan ku jiraynaa waxaan miyaysa waxaan dadnimo xumo ahayn miyaysa waxaanu qashin ahayn miyaysa waxaanu dullinimo ahayn inaan ku jirno sidan oo gafuurka la isku taagtaago wax ay ku dagaalsan yihiin iyo wax ka dhaxeeyeen midna aysan jirin waan la garanayn soo dhibaato ma maxay isku dagaalsan yihiin hadday isku dagaalsan yihiin oo isdagaalsan yihiin ma isdilaan oo isxabadeeyaan ma isfeeraan waa kuwa is ag joogeen meel cidlaa bar cidlaa ayaa la isku dagaalsan yahay qof kasta oo kursigan imaada qof kastoo madax noqda sidaas ayay ku samaynayaan kuwaan isla socda mid hadduu kursiga fuulo waa qof kale kuwan kalena waa diidayaan war haddii aad rabtid in berri lagu dhagaysto oo lagaa dambeeyo dhaqan iyo akhlaaq iyo dhaqan ka dhigo oo samayso in aad ogolaato in lagu hogaamiyo ood madaxda ixtiraamto wixii markaas meesha ka taliya ixtiraam ka dambeey si adiga xataa beri haddaad wax noqoto lagu ixtiraamo adina haddii midka maanta joogo asagoo kursi ka tuurasho iyo kursi la gembis oo ku yimid meesha ma ahan inaad adiguna ku raadiso mana ahan inaad adigu ku helayso sidii uu ku hela kan dadka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay waxyaalahan ay samaynayaan dadkan iyo akhlaaq daradan dadkan inaan ma yeelno naga daaya fadlan naga daaya waa inaan dhahnaa naga daaya intaan ugu filan naga daaya waa idin salaam